fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wacan wanaagsan saaxiibayaal meel waliba oo ducaa caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada warka habeennimo ee channelkeena. oo maanu haynan ku sii sugno finalka Champions League way Taiwan ku sii sugaynaayo ku sugistii warkii baan soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha sportiga ku saabsan waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay caawa Champions League ku dhacaya oo waxoogaa yar un bay ka harsan yihiin oo saacada ah warka ugu dambeeyay arrimaha Liverpool iyo Tottenham baan soo qaadan doonaa Arsenal iyo kubadda cagta guud ahaan oo ay tacsi weyn gashay kadib markuu geeriyooday ciyaartoy kamid ah ragii qaaday koobkii Betika lagu qaaday ee Premier League ee koox iyagoo aan laga badin ba qaaday horyaalka wali waxaan eegi doonaa warbixino kale oo ku saabsan caawa ciyaaraha Inter Milan oo soo adkaynaysa soo wadatana ciyaartoy qatar badan oo ku jira Eden Dzeko Madrid oo caawa la soo afjarayo 19 maalmood oo ay koobka Champions League iyagoo iska haysteen koobkanu 19 maalmood cid kale iyagu ahayn oo qaada waa la waayay caawa ayuu soo afjarmaya muddada dheereed ee Madrid ay koobka Champions League xukumaysay qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha suuqa iibsiga ciyaartoy ku jiro bal warkii oo faahfaahsan موانو هين نسكسي يعني سو اغنا wararka waxa jira yani ku sii sugnaa ciyaarta waan ogahay dadka qaar bacaawa waa baraxsan yihiin dadka qaarna calooshada xanuunaysa war iyo warba ma gali karaan oo aan ku sii sugnaa leeyahay warkan waxa leeyahay aan ku sii sugnaa Champions League finalka aan ku sii sugnaa caawa ilayn 10 habeenimo ay ciyaar Champions League soo gali doontaa aan isaga sii yara sugno marka inta laga gaarayo dadka qaar caawa saacadan dhididayaan ba kulal aan jirin baa haya aniga caawa horta waa maro waa dhici doontaa Liverpool oo sanadkii hore laga qaaday iyo sanadka kan loogu daray waa lagu kala tagaa joogis ma taal meeshas in laga koox in laga amaah aadaya mooyaan amaah laga doonanayo mooyaan oo amaah koox kale loo aadayo mooyaan war kale ma yaal anigu Liverpool shaas xooga weyn ma arkin wax laga qaadi karo laakiin way iska baroonina calaabo أنا واحد لي دوتين هيا محمد قادرو واحد ليفربول كوب قاديسة هدان بكون شيء يعني أنا وحن مدح كدريمية وحن مدح كدريمية شملي كانوا عاونوا ليفربول وبيو مدح يقول عاو حتى ما أركن ما لنتي وريهان دبالو أوريجيالو يكوا كله كسر ربين برشلونة أفر جول كسر بحين بمدح كسي دريمية كوب قادي كران ولا كوب بدعت واحد كستدعي كران أنا وسادة شيء شملي يقول حي عاود هاي إن كوب كانوا ليفربول وبيو إنه كوب كانوا جامبيون ليغ وكانوا ليفربول وبيو لا تحي ولو وقت يسكندعي كران هذا يسندعينا ninka odaga ay marada ka dhacday dhaw way ga dhacday markaay laakiin sida ugu badan tahay waxaan qabaa koobka inuu Liverpool wayo waa reer Liverpool ka Hargeysa jooga war kan Muqdisho jooga waa kuwa gobolada jooga guud ahaantii iyo kuwa dibadda jooga waxaan idin leeyahay Champions League caawa xaqiin u socdaa reer Liverpool waxaan idin soo kuurkuuraba oo aan idin ka soo cariisiyo xilli ciyaareedku aan inkaartiini iyo habaarkiina aan tilmaamo caawa waxaan arkayaa dawlad inay idin dhalanayso waxaan arkayaa caawa habeen aad ducaysantii inuu idin noqonayo waxaan dareemayaa caawa inuu yahay habeenkii aad madax degsan lahaydeen oo aad madax shuban lahaydeen waxaan noo balana ciyaartu kadib haddii Liverpool ay maradu ka dhacday hadday ka dhici weydo laakiin siday u badan tahay caawa anigu saadaasheedu waxay tahay inuu caawa Champions League Liverpool oobayo haddaba haddii caawa Champions League midkood uu qaado Liverpool ama Tottenham waxa soo afjarmaya 19 maalmood oo Champions League Madrid ay gacanta ku haysay Real Madrid xoog badna kuwaasna wax ma laga qaban kara ka war nimankaas waa ku dheelayaan ka war Champions League dadka qaar ay la culus yahayba iyagoo u jilcayahay ka waran waxa soo afjarmaya caawa haddii labadan midkood uu Champions League qaado waxa soo afjarmaya 19 maalmood Champions League iyaga hiskaystay cid kale qaada wala yani muddo 3 sano Champions League la dhigay iyaga qaaday waa 3 sano isku xiga koobkan iyaga daldalanayay marka 19 maalmood kadib koobkan uu caawa koox kala yeelanaysa muddo Madrid ba iska haysatay oo cid kale koobkan qaada wala waayay marka caawa koox aan ahayn Madrid oo aan ahayn Madrid ba caawa ku guuleysanaysa koobka kanu ama waa riidoyo rid buu noqon karayaa ama waad buu noqon karayaayo cadcadka kolba iska sii socon karayo Tottenham ba qaadi kartaa ama gudud buu soo bedeli doona caawa Champions League marka ogow 19 maalmood kadib caawa Champions League koox kala qaadaysa waa muddo 3 sano kadib koox kale koobkan maanu qaadin oo Madrid ahayn warar kale caawa weyn ciyaaraha waxa kamid ah tacsi ayaa gashay kubadda cagta waxaana laga yaabaa caawa ciyaarta finalka Champions League loo aamuso ninka geeriyooday maanta waa nin kamid ah ragii Arsenal la qaaday koobkii Betika ahaa Arsenal ay ku qaaday Premier League ee taariikhiga ahaa
waana Jose Antonio Reis ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Seville oo ah koox ka mid ah koox u soo ciyaari jiray waxaana la cadeeyay ciyaartooyga inuu geeriyooday waliba waxa la socday in adeerkii Jonathan Rice ayaa la socdayo Jose Antonio Rice waxa uu ahaa mid kamid ah ciyaartooyga ugu khatarta badnaa kubadda cagta soo maray waxaanu la dhameystay ciyaartooyga Arsenal ee taariikhdu sameeyay 2003 markaas oo Real ku qaadeen iyagu dhanna u soo wada tacsiyeeyeen oo ciyaartooyga kubadda cagta dhan baa tacsiisay ninkan wuxuu soo ciyaaray kooxo badan oo kubadda cagta ah waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Seville Real Madrid Atletico Madrid Arsenal iyo kooxo kale ayuu ninkan u soo ciyaaray waqtigiisa wuxuu ahaa Isbaanishkii ugu horeeyay taariikhda ku guuleystay ciyaaraha Premier League horyaalka Premier League wuxuu ahaa Isbaanarkii ugu horeeyay taariikhda ku guuleystay nin Spain u dhashay hortii horyaalka Premier League kuma guuleysan wuxuu ka tagay 3 caruur ayuu ka tagayo gabar iyo wiil kale oo la yiraahdo Jose Antonio GR waxaana uu hore u guursaday isagu gabadha lagu magacaabo Nolia Lopez oo xaaskiisa ahayd dhammaan kubadda cagtu ayaa u barar diiqaysa maalintan weyn walibana u tacsiinaysa ciyaartooykan Thierry Henry baa soo hadlay Real Madrid baa tacsiisay Barcelona baa tacsiisay Arsenal oo ciyaartooygoodii hore u ahaa ayaa tacsiisay Aguero iyo Atletico ka soo wada ciyaareen baa u tacsiiyay dhammaan ciyaartooyga kubadda cagtu dhanba way u wada tacsiiyeen ciyaartooykan Jose Antonio Reis da'da 35 jir ayuu ku geeriyooday ninkan Antonio Joyce and Rice waka gaarigii shilka la galayo ninka Arsenal la qaaday 2004 koobkii ambitinka ahaa warar kale ugu miisan caawa ciyaaraha waxa kamid ah Zidane ayaa ka dambeeyay Ramos inuu si joogo kooxda kubadda cagta Real Madrid maalinkood waxa soo baxday in Ramos uu kooxda Madrid ka tagay Shiinaha u aadayo xaalku xataa meel xun buu taagnaa anigu u maleynay inuu Zidane arrinkan soo dhexgalay ileen Florentino Perez wax ma xalin karayo ninkaas waa baxa hadii la yiraahdo iska baxo iska leeyahay Ronaldo yiri waa baxaya war iska bax baa leeyahay Ronaldo xataa oo ninkii dhamay Madrid kala waday ninkii diray nin kale uma daahayo Ramosna wuxuu lahaa bariya waa baxaya Malwid Barais wuu hadlayo wuxuu yiri Ramos wuu sheegay inuu rabo inuu baxo ayaa la yiri kolba haduu naga tagayna free kuma fasaxeeno ayuu yiri ka war cid ma tugtuga ninka kaasu waxaan yiri Neo Ramos iyo Barais ku heshiiyeen ilaan Zidane baa meesha ku jira waxay warar ku leeyihiin Zidane ayaa ka codsaday 33 jirka kanu inuu sii joogo kooxda kubadda cagta Real Madrid oo halkoo sano kale uu kooxda joogo Zidane ayaa ahaa ninkii ka dambeeyay oo arikan soo farageliyay in Ramos kooxda sii joogo marka Ramos ninkan baa celiyay mooyaane ninkan Barais wax ma celiyo war iska baxuu leeyahay lacag leen ka helo Ronaldo waa kii 100 milyan ku gatay marka Zidane ayaa soo farageliyay arrinkan oo Ramos ka codsaday inuu kooxda sii joogo Baresna uu sheegay inuu ninkan ka dirin Matia Delight oo ah difaac aad loo raadinayna waxa la sheegay maalmaha soo aadan uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa hadduu ku biiri karayo kooxda Manchester United oo doonaysa ama kooxda kubadda cagta Barcelona Delight wuxuu hadda ku mashquulsan yahay ciyaaraha xulkiisa maalmaha soo aadan ayuu go'aan ka gaari doonaa hadduu Barcelona iyo hadduu Manchester Obayoba nin week Jurgen Klopp ayaa qabsaday magaalada Madrid taageerayaal badan ayaa isugu soo baxay maanta Tottenham iyo waliba Liverpool aysan waxaana dadka kale ka soo dhex muuqday nin u eg Jurgen Klopp taageerayaasha Liverpool ayaa la yaabay oo isku sawiray ninka kanu war ma Klopp kiiba idin soo dhex galay bay yiraahdeen waa yaabeen ninkii ayaa markii dambe sawir la galayo qaabku tinta u xirto iyo wajigiisa iyo qaabkiisu wuxuu ahaa Klopp reer Liverpool markii dambe waxay bilaabeen ninka Klopp u eg ba inay sawir la galaan ninkan ay dadku ka yaabsaday Madrid isugu soo baxay maanta maxay waa nin aad u shabaha ninkan la yiraahdo Jurgen Klopp tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery waxay warar ku leeyihiin wuxuu si hoose ula xiriiray ciyaartooyga kooxda PSG Thomas Meunier waqtigii ay wada joogeen PSG ayuu xiriir fiican kala dhaxeeyay Meunier oo xil ciyaareedkii la soo dhaafay 3 ciyaarood kooxdan u ciyaaray haddaba ninkan ayaa ka dhaadhicinaya Unai Emery Meunier oo nin dambeed kamid ka ciyaaray inuu Arsenal yimaado warin 27 jir waxay Arsenal doonaysaa heshiis sano inay ka siixdo Manchester ayaa sidoo kale doonaysa marka tababaraha kooxda Arsenal waxay warar ku leeyihiin si toos ah wuxuu ula haslayaa ama ula heshiinaya ama ula xiriiraya ciyaartooyga lagu magacaabo Meunier oo Manchester xitaa doonayso ogowna Arsenal suuqeeda sanadkan 40 milyan bay u haysataayo ciyaartooy badanna way rabaan 40 milyan waa inta loo siin suuqay ku galaan waa iska lacag yar Arsenal 40 milyan wax ka badan ku rabaan Ilaahay amarkii oo 40 milyan Maxamed Qadar balweelen baan maleynaya wallahi uu dhaliyaan ahaya hada warka ay geysato amba iska wariyahan dabal ba iska noqday waan ku umaamadayaan wax walaa waan dhalinaya 40 milyan bay Arsenal suuqa u joogta sanadkan oo yaani 40 bay suuqa u haysataa oo ciyaaryahan ay ku soo gadanayaan madaxda waxay yiraahdeen 40 milyan waxaad rabtaan ku keensaday baa la yiri Arsenal 40 wax ma joogto maanta Chelsea waxay warar ku leeyihiin Sarri ninka uu la yiraahdo wuxuu u dhow yahay inuu ku biiro kooxda Juventus waxay raadinayaan tababaraha kooxda badali lahaa ninkan Sarri haddaba dhowr tababare ayay warar ku leeyihiin way la xiriirinayaan Chelsea oo ay doonayaan Frank Lampard baa kamida Massimiliano Allegri baa kamida Patrick Vieira baa kamida Diego Simeone baa kamida Nuno Espirito Santo baa kamida oo macallinkii Wolves dadka ka yaabsaday baa isna ku jira
tababarayaashu ay Chelsea doonayso iyadoo Inter Milan wararku ay leeyihiin heshiis ay la sii gaartay ciyaartooyga lagu magacaabo Edin Dzeko oo ka tirsan Roma iyo xataa waxay warar kale sheegayaan in xitaa Roma ay kala soo wareegayaan ninka lagu magacaabo Alexander Kolarov waxa ninka kan labada ninba doonaya Antonio Conte raba sanadka dambe isku soo adkeeyo maadaama Inter ay ka qayb galayso Champions League haddaba waxay wararka ugu dambeeyay leeyihiin Inter waxay heshiis hordhacba la sii gaartay ciyaartooyga Edin Dzeko waxaana ay Inter la siixanayaan baa leeyahay ninka heshiis 3 sano oo kooxda ku sii joogayo kuna qaadanayo 4.5 milyan marka Edin Dzeko iyo waliba Kolarov waxay wada imaanayaan Inter oo ka soo wada tagayaan baa leeyahay Roma laba ciyaaryahan muhiim u imaanayo dambeedka bidix iyo weerarka ah Dzeko wala waan qatar badan Romana waxay caawa rajeynaysaa in Champions League ay qaado kooxda kubadda cagta Liverpool maxaa yeelay waxay heli doonaan lacago ay ka heli doonaan kooxda Liverpool lacagaas oo ah lacago ay ku heli doonaan heshiiskii Mohamed Salah iyo heshiiskii Alisson Becker labaduba Roma ay ka qaateen Liverpool heshiisada waxa ku jira baa leeyahay hadda Champions League qaadaan war lacag noogu soo ciidamada ayaa heshiis ku jirta baa leeyahay yaani labaduba Roma ay ka soo qaateen Alisson iyo Salah ba kooxda Liverpool heshiiskoodu waxa ku jira baa leeyahay qayb ah hadii ay Champions League ku guuleystaan labadaas ciyaaryahan in lacag Liverpool ay ka bixiso yaani Roma lacag la siiyo maadaama heshiisku qayb uu ka ahaa 5 milyan bay ku helayaan baa leeyahay Salah hadii caawa Champions League ku guuleystay in ninka kale oo isagu lacag kale ku helayaan marka Roma waxay ku duceysanaysaa in Liverpool cup ku qaado lacag bay ka helayaan labadaas suninba Messi wuxuu doonayaa ama uu cadeeyay inuu doonayo inuu ku wadankiisa Argentina wax koob la qaado intaan uu ciyaaro kubadda cagta ka fariisan Argentina ay soo diyaarinaysa Copa America oo Messi laba jeer ku guul daraystay iyo waliba koobka adduunka wuxuu sheegay inuu doonayo intaan uu ciyaaro kubadda cagta ka fariisan inuu doonayo wadankiisa in wax koob la qaado haba yaraado ama ha weynaade koob inuu la qaado uu doonayo wadankiisa laakiin arimaha ku aadan Neymar inuu Barcelona ku laabanayo baa Spain wargeysyadu dhan bahaysta hadda wargeys ka soo baxa magaalada Madrid ayaa cadeynaya in Barcelona aysan qaadan karin Neymar sababahan darteed wuxuu leeyahay wargeyskan oo wargeyska la yiraahdo Marca wuxuu leeyahay lacagaha Neymar lagu soo qaadan karo waxa weeyaan waa 222 milyan waxay leedahay lacagaha ka waa lacago aad u waqti in Barca ay bixiso 222 milyan lacagaha Barca si uu hesho waxa ay macquul tahay in uu iibiyaan 4 nin lacagaas in Barcelona ay hesho 4 way u iibin kartaa waa Coutinho Rakitic iyo Ousmane Dembele waa 3 nin 222 milyan Barcelona in ay Neymar dib ugu soo iibsato waxa la weeli karaa baa in suuq la saaro saddexdan Coutinho suuq la saaro Rakitic la saaro Dembele la saaro lacagaha marka waxa laga yaabaa in la helo sidoo kalena Neymar hadda wuxuu mushaar ahaan kaga qaataa sanadkii kooxda PSG 35 milyan buu ka qaataa lacagahaasna waqtigii Barcelona uu diidanayeen Barca ay siisan karo yaani waqtigiisii Barcelona uu joogay 35 milyan Barca uu diidan in kanu siiso haddana waa nin lacagtaas qaato mushaar ahaan u qaata sidee Barca ku bixi kartaa lacagaas baa leeyahay ee hore uu diidan inay siiso waxaad kale ogaataa hadii Neymar lacagahaas uu qaadanayo Messi uu lacag ka badan uu qaadanayo oo BK Luis Suarez Busquets iyo Albani lacag badan qaataan maxaa uu xal Barcelona baa leeyahay xaaladda ku xumaan doonta yaani mushaaraadkaas wax kaba qaban kartaa leeyahay sidoo kalena in Neymar Barcelona ay soo qaadato waxay ku khasbanaan doontaa in midkood ay iska dhaafaan soo iibsiga Delight ama Griezmann yaani Barcelona hadii Neymar ay soo celinayso baa leeyahay waxay ku khasban tahay Delight ama Griezmann midkood inay soo qaadato oo ka kale iska dhaafto yaani labadaas intay soo iibsato Neymar ma keeni kartaa leeyahay tan kalena Griezmann wuu ka caroon doonaa hadii Neymar uu kooxda Barca ku soo laabto maxaa yeelay Neymar ayaa Barca ku soo laabtay ayaa ka weynaan doona warka weyn ee ah Griezmann ay Barca qaadatay taasna waxay hoos u dhigata kartaa imaanshaha Griezmann ee kooxda Barcelona marba hadii Neymar waa soo laabtay la yiraahdo Griezmann waa yimaado la yiraahdo waxa war weynaan kara Neymar ayaa Barca ku soo noqday ayaa ah warka ugu weyn ee caalamka ay wada lahayn doonaan wuxuu iska noqon doonaa Griezmann sida wiil yar koox ku soo biiray arintaasna Griezmann ma cajib gali kartaa la leeyahay marka in Neymar ku soo laabtay kooxda Barca waxay niyad xumayn kartaa Griezmann maxay leeyahay hadii Griezmann ayaa Barca ku soo biiray hadda diirada war weyn u noqonaya hadda Neymar imaanin laakiin Neymar ayaa soo laabtay Griezmann wuu yimaaday wax ma keenaysa wax weer weer ma noqonaya leeyahay marka ninka Faransiiska ee Griezmann baynu ku khasbi doontaa bal aragga inuu Barcelona imaanshiyo imaan lahaa uu ka joogo midata maxay yeelay Barca wuxuu ugu beeriyaa sida wiil yar oo kale ugu beeriyaa hadii Neymar uu yimaado ilaa Neymar ka caan ayaa ka sii caan badnaanayo warkiisu ka weynaanaya